السلام عليكم walaalayaal soo dhawaada walaalkiin Faisal Jaamac maantana xiisadeena waxaa weeye waa falanqaynta saddexda lacagood aan u baranay inaan ku falanqayno suuqa forex-ka saddexda lacagood falanqoontooda waxaa maanta raaci doona ardayda Tayo Ibrahim iyo Cabdimalik oo ayaguna laba lacagood ku dari doona insha Allah falanqayntooda saddexdan lacagood waxay noo noqon doonaan saddex lacagood oo basic ah oo usbuuc walbana aan soo dhigi doono historygooda iyo bastigooda kadibna aan raacin doono waxa la yidhaahdo mustaqbalka markaa futureka waxyaalaha laga rajayn doono sida haddaba aan intaan gudagelin falanqaynta waxaan rabaa inaan in yar aan ku daro oon caddeeyo in qaybtii waxbarashada ay noo xirantahay bilowgay may weeye insha allah waxaan waqti badan gelin doonaa ama waqti badan siin doonaa ardadii already aan qaadanay ma jiri doonto arday dambe oo qaadanayo oo cusub taa waa ogeysiis qaybta waxbarashada way xirantahay marka insha allah wixii update ah macluumaad ah channelka Tayo iyo YouTube-ka waa socon kartaa insha allah haddaba haddii aan guda galo aan ka bilaabo lacagta USD CAD waxay ahayd lacagihii ugu fiicnaa waxa la yidhaahdo weekend aan wax fiican ka qabanay sida aan ku sheegayba waxay ahayd weekend markii aan joognay trainlineka la jebiyey halka waxaa nooga soo baxay nashqadaasna waxay ahayd head and shoulder ayaa la yidhahdaa nashqad fiican oo aad u qurux badan halka nooga soo baxday marka waxay ahayd saadaalintuna equal mission movement uu samayn doono sida lacagta USD CAD aan sawirkaba kusoo gudbiyey equal mission movementiga waa kana ma ay dhamaystirin laakiin adigu ugu yaraan waxayna siisay bibis fiican oo macquul ah oo aan qaadanay adu 150 bib almost waan ka qaadanay marka 150 bib markaan ka qaadanay weli waxaan rajeynayay in suuqu ilaa halkaa gaarayo laakiin by the way muusan gaarin oo waa soo noqday marka anaga dabcan scalping baa hayo inta badan trade aan hayo waqti dheer ma ay jirto marka suuqu wuxuu sameeyey inuu mar labaad uu jabiyo horizontal line-kaagi horizontal line-ka markii la jabiyey yani akiid waxaa ah in suuqani uu turn around sameeyey ama jihadiisii uu ka leexday taasna waxaa lagu caddeyn karaa inaad trend line sawiratid oo kuu proof garaynaya in wax la yidhahdo suuqaagii la jabiyey as well as trend line-kaygina waa la jabiyey asagana waa la jabiyey markaa suuqu almost breakout ayuu sameeyey ilaa halkaas uu gaaray haddaba suuqan markuu intaas dhan sameynayey retest miyii sameeyey oo wax la yidhahdo macquula retestiga baan rabaa inaan kala caddeeyo retestiga wuxuu noqon karaa 4 hour 1 hour 30 minute xataa retestiga wuxuu noqon karaa marmarka qaar daily waxay ku xiran tahay marka adiga nooca trader ee aad tahay ayay ku xiran tahay nooca trader he aad tahay ayay ku xiran tahay marka tusaale kale 1 hour ka samee 1 hour ka wuxuu sameeyey retest macquula ayuu ku sameeyey okay noo soo wad 30 minute ka imow wuxuu ku sameeyey retest kale ayuu ku sameeyey oo halkan weliba uu kaaga sameeyey markuu breakout ka sameeyey isla markii uu kusoo noqdo marka retestiga aad raadinaysid waxay ku xiran tahay nooca trader ee aad tahay anigu scalping baan ahay 30 minute kan oo kale retest haddaan ka helo that means waxaa weeye waa confirmation fiican haddii 1 hour ka aad raadinayso waa kan oo fiican 4 hour ka aad raadinayso ina meelahan ku sugtid marka waxay ku xiran tahay adiga ma day trader baa tahay meter day baa tahay scalping baa tahay okay marka suuq ilaa intaas oo dhan ayuu gaaray oo wax la yiraahdo garabkii bidig iyo bidixba ula sintay taa waxa weeyaan intaas suuq wuxuu sameeyey waa basti dabcan isweek aduu halkaas aan ka galnaa filaya ilaa intaas oo dhan waa la soconay marba xataa halkan kasoo raacnay ilaa intaas oo dhan waa la soconay that's the best taban waa wixii tegey
haddaba hadda maxaa dhici kara futureka GJ USD CAD futurekeeda muxuu noqon karaa USD CAD futurekeeda waxaa weeyaan in waxa la yidhaahdo in waxa la yidhaahdo ay samayso inay garabkan kasoo noqoto oo ugu yaraan halkaas soo gaarto GJ anu uma maleynayo inay waxa la yidhahdo USD CAD cafwan uma maleynayo in gidaarkan dheeliga ah ay jebisay isbuuc dhaweyd inay mar labaad jebinayso waa aad bay u yar tahay possibility ku jebin karayso bale waxaan isleeyahay waxay qaadan karaysaa waxay samaysan karaysaa USD CAD maadaama intaasoo dhan oo imbalsi ay dhaqaaqday in wax la yidhaahdo ay samaysato bullback fiican bullbacks inay ka noqoto marka labaad imbalsiga ay qaadan doonto imbalsiga labaad u noqdo marka inay GJ noqonayso in USD CAD ay noqonayso inay halkan mar labaad kusoo noqoto possible in halkay aado mar labaad inay soo noqoto iyo inay jebisaan marka possibilitygeeda aad bay macquul u tahay markii aan tagno wax la yidhaahdo dailiga 4 hourka waa meelaha biaska ama ugu fiican ee wax laga analyze karayo halkan waxaad ka arki karaysaa inaan la jebin karin mar labaad inta lagu soo noqdo si fudud loo jebin karin adoo historygan adeegaysid halkana waxaa weeye laftigeeda waa zone adag oo resistance ah marka waxay noqonaysaa suuqu inuu noqdo inuu qaato bullbackaasna uu noqdo imbalsigaas inuu ilaa halkaas u kala gaaro marka taas waa future dheer waxaa laga yaabaa weekend oo dhan inay candleka uu noo samaysmayo uu noqdo mid halkan ku samaysma halkan ku samaysma halkan ku samaysma halkaas soo gaara ilaa halkan gaara no weekend intaas noogu dhamaado ayaa macquul markii daily la joogo maxaa yeele 5 candle waa daily waa week okay 4 hourka markaan tagno waxaan fili karo markaan isticmaalo Fibonacci-gayga waxaan fili karaa waxaa weeye suuq inuu bartan kusoo noqdo isla zoonkan ee supportiga USD CAD ay kusoo noqoto bartan markay kusoo noqoto imbalsiga dambe waa raaci karaysaa imbalsiga dambe waa raaci karaysaa ilaa halkaa uu gaarayaa 161 ilaa halkaa uu gaaraya akid okay marka taas waxaa weeye futureka ama la saadaalin karo USD CAD marka haddaba ka waran hadduu isla gidaarkan uu jebiyo isla gidaarkan hadduu jebiyo ka waran maxaa dhici kara hadduu isla gidaarkan jebiyo waxaa sugaysaa inuu ritasti sameeyo adigoo 30 minute iyo 1 hour hadba traderkaaga adeegaysid kadibna suuqa sii raac imbalsiga dambe sii raac laakiin possibility uu halkan ku jebin karayo waxaan oran karaa waa 40% meelaha halkan possibility uu ku jebin karayana waxaa weeye 10% yani 90% kale in la jebinayo halkan hoose waa adag tahay marka adigu watch garee hadduu halkan jabo oo kale ritasiga suuq halkaas sii raac ilaa intaas oo dhan sii qaado hadduu halkan kugu soo noqdo bartan waxa la yidhahdo scalping ahaan adoo scalping isticmaalaya dabcan qof walba nooca uu trader yahay aniga tusaale kale haddaan scalping ahay markaan soo tooso inuu intaas oo dhan soo gaaro ma sugaye waxaan tegayaa 1 hourka 30 minutekan sii tegayaa kadibna waxa la yidhaahdo inuu bartan isoo dhaafo umbaan watch garaynaya hadduu halkaa isoo dhaafo ilaa intaas clear candle ilaa intaas ayaan qaadanayaa ilaa intaas baan qaadanaya marka nooca trader ee aad tahay ayay ku xiran tahay marka mar walba watch garee futureka waxa weeye
inta bib ee dhaqaaqi karayso ee mustaqbalka ay samayn karayso weeyaan laakiin ma ahan mid aad maalin dhan ama saacado dhan aad usoo sugaysid ama intaad soo dul fadhiistaa wait garaynaysid laakiin waa mid mar walba aad ka heli karaysid session kasta New York ama London ama Asian session walba bibis fiican ka helaysid adigoo overall ka haysta e-page-ka dailiga iyo 4 hour-ka waxaas dhan waxay ku siinaysaa overall ku suuqan u socdo suuqan biaskiisa aad buu u xoog badan yahay that means waxa weeye inuu soo noqdo yani inay possibility boqolkiiba 90 ay tahay waa wax macquul la garan karayo marka that means waxa soo noqon kan self fiican ayuu ku soo noqon doonaa marka adiga ayay ku jirtaa marka hadda scalp garanaysid iyo haddii aad daily garanaysid iyo haddii mataqaanaa zones kan supply and demand-ga aad wax liyaado la soconaysid laakiin mar walba ha u qatanaanina ma ha sugin in wax liyaado wax waqti dheer aad sugtid oo time badan ay kugu qaadato su'aalaha xataa hadda week aad tagtid isbuuc haddaad tagtid maxay ku sheegaysaa in possibility-ga ama biaska isbuucan lagu jebin karo inay tahay 0 dhowrkan dhal baa laga diiday in la jebiyo waa imisa isbuucii koowaad 1 2 3 4 5 6 ilaa 6 week baa la diiday in la jebiyo that means waxa weeye kanalka dambe ee samaysmi doona halkan ayuu ku furmi doonaa ilaa areadan wax la yiraahdo buu gaari doonaa oo xaggan mataqaanaa madaxa ayuu retrogradaya kadibna halkan ayuu kusoo noqonaya halkan ayuu kusoo noqonaya soo mar labaad u retrogradayo supportiga kadibna wuxuu qaadan doonaa impulse adag oo marka ilaa zone-kan gaaraya ayuu qaadan doonaa taas waxa weeye overall-ka week-ka ama isbuuca la saadaalin karaya weeyaan marka daily-ga tagtidna that means waxa weeye candle-kan halkan ka samaysmi doona inuu noqdo mid halkan kusoo noqonaya soo gidaarkan u gaaro weekliga uu retrogradayo gidaarka weekliga ama resistance weekliga uu u gaaro marka suuqu intaas ayuu noqon doonaa haddii uu wax la yiraahdo mucjiso dhacdo uu possibility halkan uu resistance ku jabiyay dhacdana watch gare banaanka ku sug aydan mar walba bibis tahay kan weynaysa taas waxa weeye USD ka inay concept fiican ka yeesheen ee rajaynaya bast iyo mar walba wax la yiraahdo future-ka inaad mar walba suuq qiimaysid aad ayuu fiican tahay fiiri GJ waxay ka mid tahay lacagaha isbuucan aad ku dhaqaaqay GJ waxay ka mid tahay lacagaha isbuucan aad ku dhaqaaqay markii la eego GJ isbuucan inay wax la yiraahdo head and shoulder kan samaysatay waxaan filayaa inay channelkeena trade area aan ku shaaciyay in markii halkan la soo jibinayay in ilaa zone-kan la gaari doono maadaama aan scalping ahayn marka haddaba ama aan wax la yiraahdo scalp ilaa intaas oo dhan ayaan rajaynaya inaan la socdo laakiin mar walba qorshaygu ma ahayn in wax la yiraahdo ilaa halkaas oo dhan la socdo laakiin by the end of the day in gidaarkan inta badan lagu noqonayay oo lagu soo celinayay in la jibinayo waa iska caddeed qofkii markaas sugayay oo time frame-ka yarka markaa tagtay 30 minutes oo kale aan tagno 30 minutes oo kale qof ku sugayay oo halkan mataqaanaa candle-kan oo kale inkastoo aysan chance ba ku siinin 15 minutes kana gee candle-kan oo kale marka uu jabay candle-kan 15 minutes oo kale kan markaa waa la qaadan karayay inkastoo ay ahayd wax suddenly oo trade hore loo hayay ma ahane mid kale aan hore loo qaadan karin maadaama uu yahay waxaan dhaqaaqay inuu yahay halkan mar keliya that means waxa weeye saadaalinta isbuuc dhaweyd inuu halkan gaari doono way inoo gaartay anagoo mar walba aan ka quraacanaynay ama ku shaqaynaynay gidaaradan inta badan aan weekend oo dhan ka faa'iidaysanay iyo isbuucyadii hore oo dhan aan ka faa'iidaysanay marka bastiga waa kana future-kan marka muxuu noqon doonaa future-ka markii la eego GJ weli range ayay ku jirtaa markii daily-ga la arko daily-ga waxay ku jirtaa range nimisa ah ilaa 320 range ayay ku jirtaa bib ah okay isbuucan maadaama ay jabisay waxay retrogradaysay ama u dhawaatay inay taabato resistance-ga daily-ga wayna soo noqotay say retest u samayso retestigana wuxuu noqonayaa marka fibiska noo qaad last swing ku qabo wuxuu ku dhacay almost 38
okay 38 kama meesha laga celin karayo oo impulse ka qaadan karayo marka halka waxa kaaga samaysmi kara halka waxa kaaga samaysmi kara train cusub ayaa kaaga samaysmi kara trainka cusub marka almost hadda markii 1 hour la joogo bullish ayuu kugu bilowday oo waxa ka wada bearish ayuu kugu bilowday oo suuq soo noqday ayuu sameeyay that means waxa weeye waxa sugaysa kaliya waxa weeye suuq inuu qorxo oo ilaa halka gaaro kadibna oo ilaa zone-kan uu ku gaaro aniga muhiimadda koowaad waxa weeye in la jabiyo impulse waxaan ka rajeynayaa waxa weeye muhiimaddiisa koowaad in la jabiyo daily range-gan 321 pip ah in la jabin doono marka range-gan markuu kusoo ratistagareeyey adigu waxaan sugaynaa bal noo eeg fibiska meesha uu gaari karayo wuxuu gaari karayaa ilaa halka that means waxa weeye outside kinodic that means waxa weeye tb-geena koowaad noqonaya kan that means waxa weeye outside here that means waxa weeye range-gan daily-ga ah in la jabinayo oo halkan tb-ga koowaad yahay kana ka labaad yahay kana ka saddexaad yahay adigu muhiimaddu waxa weeye in la jabiyo daily resistance-gan week-kan kaasna waxay ku noqonaysaa markaas strange area oo suuq wax la yiraahdo ilaa halkaas ilaa bartan ayuu gaari doonaa taasna waxay noqonaysaa pips fara badan inaan ka helno oo halkaan ka sii socono markii ay eegtid wax la yiraahdo daily-ga oo fibska xataa soo qaadatid meesha laga soo celiyay waxay ahayd between 38 ilaa 50 ayay meesha laga soo celiyay meesha uu gaari karayo marka halkee weeyaan meesha uu gaari karayo waxa weeye range-gan waxa weeye waa bullback kusoo noqon suuqa samaynayo wuxuu gaari karayaa waa tb-gina koowaad tb-gina labaad iyo keena saddexaad ilaa area-dan ayuu gaari karaa ayaa la leeyahay marka waxa weeye taasna fibs conference oo fibski laftigoodii ayaa waxay caddeynayaan halka suuqu gaari doono marka aan joogno 4 hour-ka maybe suuqa marka inuu noqdo wax indirection ah way dhici kartaa in suuq uu soo jabiyo supportigan uu wax ku arrin gidaarkan resistance-ga oo hadda support ugu ah waqtiga dheer ku qaadatay inuu jabiyo inuu suuqu intuu jabiyo maadaama suuq iska abnormalities aad isaga badan tahay inuu range-gan dib ugu noqdo laakiin possibility halkan uu noqon karo ama wax la yiraahdo probability-ga waa 10% 90% kale waxa weeye inuu impulse qaadan doono so you have to watch inaad daawatid weeyaan jijayna waa bastigeeda iyo presentgeeda waa saas weeyaan euro iud baa kusoo hartay euro iud waxay ahayd lacag cajiib ah bay ahayd yani halkan bay naga siisaa babis halkan bay naga siisaa babis halkan bay naga siisaa babis yani waxay ahayd lacag aad u qurux badan bay ahayd isbuucyada dhamaado dhan markii la eego oo aan tagno euro iud aan tagno bastigeeda aan eegno that means waxa weeye equal measure movement-geeni waa inoo dhamaystirta equal he measure movement-geeni halkan waa inoo dhamaystirta ka kaloo nooga dhig samaartid almost way inoo dhamaystirta equal measure movement markaas waxay samaysaa inay soo noqoto oo impulse-ga xooggan ay qaadato marka mustaqbalkeeni wuxuu ahaa waxaan ka wadaa bastigeeni wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo halkan ayay ahayd meeshii aan iri ka gala dabcan lacagtan rag badan baa ka faa'iidaystay bibis fara badanna aad buu dhaqaaqday almost waxay dhaqaaqday aan eego ilaa iyo 350 bib meelaha way dhaqaaqday marka qof walba intuu ka faa'iidaystay lacagtaas waa mid marka asaga uu qiimeynteeda leeyahay hadda marka lacagtan waxaa aragtaa inay wax la yiraahdo soo jebisay zoonkan resistance-ga inay soo jebisay oo daily-ga ah
inay head soo jebisay. marka lacagtan soo jebisay gidaarkan as well as isla markaa waxay jebisay trailankeeni. welina zoonkan resistance ayay u socotaa oo strongly bullish ayay ku socotaa. marka waxayna samaynaysaa inay halkan nasasho fiican samayso kadibna ay halkan dhaqaaqdo. aan bartagno tayanka yararka 4 hourka markaad tagtid 4 hourka markaad tagtid halkan waxaa arkaysaa in soo noqodkii almost la sameeyey gidaarkana suuqu ma macquul inuu wax liyaado dib ugu noqdo oo wax liyaado maxay yeelay waqtiga ku qaadatay inuu soo jebiyo waqtiyahe ku qaadatay markii la eego baasigana lacagaha dib loo eegana saasoo kale ayay noqonayaan. marka lacagtan euro IUD almost wayba samaysayba retesting oo kusoo noqonaysaa 1 hourka markaa tagno way soo socotaa. marka halkan ku sugayada halkan ku sug insha Allah. marka halkan ku sugtid ilaa iyo wax liyaado suuqu marka waxay noqonaysaa inuu sameeyo inta badan lacagaha aad ku dhaqaaqaya ka mid tahay euro IUD ina marka halkan ku noqoto. marka zoonkan waa adag yahay Soomaaliya. marka waxa qiyaas karaya in la jibinaynin halkan laakiin suuqu uu sameyn doono wax liyaado soo noqod kale oo halkan xogaa wax liyaado sameynayo noqosho xogaa ah inuu sameynayo correctionkaas marka uu sameeyo in suuqu marka uu jabsan doono kor u jabsan doono. marka maybe weekend inay noqoto week dambe inay noqoto who knows. laakiin adiga waxay ku egtahay inaa wax liyaado halkan awood garaysid inuu suuqaasna buy noqonayo oo kor aadayo kadibna gidaarkan aad eegtid maadaama zoonkan uu yahay 4 hour markii la eego hadda 1 hour weeye markii la tago 4 hour still gidaar adag weeye. marka lacagtan ayadana daawasho ayay leedahay. rinjigan inta badan suuq uu kusoo noqdaa in baarsi uu suuqa qaato oo wax isbuucii mar la arki karo waa sirta ma kuu sheegaya weeyaan. train suuq inuu kor hal mar saa ugu dhaqaaqo ama hoos aad ugu dilaaco wax la arki karo isbuucii mar. laakiin isbuucii 4 meer ama 5 marba waxaa la arki karaa waa rinjin ayaa la arki karaa. marka saddexda lacagood analyskooda intaas ayaan wax liyaad kusoo afjarayaa. waxaan ku wareejinayaa mawlid cafwan Ibrahim ayaan ku wareejinayaa oo dabcan diyaarsaday laba lacag asagana. Ibrahim inaa ku jirtaan rajeynaya codkan ku furayaa shaashadan waa sheegran kartaa. Ibrahim waa ardada ugu fircoon ayuu ku jiraa marka isbuuc walba arday ayaan gelin doonaa insha Allah analyska maadaama saddexda lacagood ay yar yihiin. saddexda lacagood oo kale baa kusoo daraya ama 4 ama 5 kale waxay Soomaalidu lacag fara badan ay rajay in arkaan laakiin saddexdan uma dhaafo inta badan kuwa kale ma eego laakiin ardayda ayaa jirta oo lacag kale maybe inay eegaan. marka ardadaas ayaan chance siin doonaa haddii Ilaahay idmo. okay Cabdimalik ayaan ku wareejinayaa Faisal diyaar ma Ibrahim diyaar ma filaya. Cabdimalik diyaar baa tahay filaya share garay screen-ka kuna soo dhawow. Cabdimalik soo maqlays قصوا على عبد الملك قد كان لما مقولوا لكن ما فلايا Halo. maqlaya soo soco Linkiga waa loo jeedaa umaleynaya. si fiican baa loogu jeedaa. aan ku hormarno GBP GHF
Ustaad, goortaan fiiriyey GBP GHF suuqan sel buu ahaa oo sel buu kasoo tegey bay buu tegey oo hadda wuxuu sameysanayaa bullbaagi. waxaanu sugna waxa waaye waxaan u jeednaa in laga soo ceshay meel adag oo goortii aan one week tagno kale oo suuqan uu ku jiray zone adag oo zoonka uu soo jabsaday uu ku noqday. marka 4 hour horta tagno suuqan waxaan u jeednaa in zone adag laga soo ceshay oo hoos u soo daatay oo marka anigu asbuucan waxaan kasoo raacay xaggan aan kasoo raacay oo waxay ahayd zone adag baa kasoo daadanayay. wuxuu iga soo jabsaday weynayo wuxuu soo jabsaday xaggan oo ahayd resistance adag oo si fiican oo adag isagoo sameysanaya trade line-keygina uu ii soo jabiyey saa u jeedtiin. xaggan double tap inuu iga sameeyey haddana uu haddeer xaggan uu sameyn karo head and shoulder oo gadaalna u noqon karo waa macquul oo waxa waaye uu sameysanayo oo xoogaa yar oo wuxuu sameysanayaa gacantii goortaan midigta gacanta midig oo kale inuu sameysanayo kale lamid tahay. marka asbuucan goortan 1 hour eegnoo kale 2 hour suuqan wuxuu sameysanayaa resistance oo ah baarkii bullback oo xaggan u tegayo oo soo noqonayo oo caadi ahaan suuqanba waxaanu ka sugaynaa sel baanu ka sugaynaa dhammaanteenba oo waxa waaye xaggan uu imaanaya xaggan uu istaagayaa ilaa intuu kasoo daadanayo waa la ogi sida la ogyahay goorta suuqa uu soo daadanayana waxa waaye inuu sameysto inuu soo daato kabacdi uu sameysto bullback resistance oo macnaha isku laab ah oo hadhow uu saan usoo daato. waa la maqlayaa filayaa si fiican baa loo maqlayaa cabdimalik. historyga marka bastiga noo sharax insha allah kadibna future ku xidhay. historyga bastiga horti caadi ahaan ustaad waa ujeedaa oo suuqan wuxuu ku jiray in labadan u dhexeeyay support iyo resistance iyo support inuu u dhexeeyay macnaha zoom adag buu u dhexeeyay uusan ka bixin. macnaha meeshii ugu koreysay buu soo taabtay oo ahayd resistance adag oo suuqan weliba u jeedin candle weyn oo sel ah inuu kusoo furtay oo suuqan ilaa hoos inuu tegi karana waa u jeednaa. good suuqana 90% inuu soo jabsadana waa u badan tahay oo waxa waaye oo suuqa waxaan ka sugaynaa waa selkii aan sugaynay. waa laga yaabaa inuu wax yar oo bullbacka inuu sameysto 4 hourka intuu u sameysto uu soo daato isagoo dhan oo xaggan ilaa xaggan yimaado. يعني inuu jabiyo xitaa kan macnaha uu asbuuc hadda soo jabiyo xoog u soo jabiyo inuu ku noqdo waa macquulo in laakiin intuu jabiyo oo zoomkan kale inuu tago macquul maahan oo sababta waa meel laga soo ceshay 2 hourka goortaan geeyo markaas ustaad halkan maxaa kaala muuqda nashqad baa ka muuqata kore xagan kore double tap camal oo kale ah double tap baa ka muuqata يعني haddii leeyahay double tapkan intuu soconayay wuu soconayaa suuqu oo ah 120 bib. يعني hadduu kan jabsadana waxa waaye bullback yar uu sameysanayaa hoos buu daadanayaa ilaa wuxuu soconayaa 176 bib.
laakiin anigu hadda waxaan ka sugayna waxa waaye inuu bullback yar samaysto oo gadaal in wax yar u noqdo ama hadhow saa usoo daato way u badan tahay. suuqan waa kana intaas hadda ka sugaynay asbuuca hadda soo socda. USD GHF baa jirtay oo ahayd iyaduna aan nila wadaagay ustaad aan kula wadaagay groupka aan la wadaagay dhammaantoodba oo maalintii oo xaggan uu samaysanayay triple tapka aan nila wadaagay dhammaantiin. oo xaggan intuuna siiyey wataan weliba ka badan buuna siiyey umaleynaya wataan hoos ka soo raacnay dad waxaa jirtay suuqu marba warar baa soo galay wararkii soo galay waa ganalkaanu joogay kor buu tegey wuu soo noqday soo noqoshada uu soo noqday baan galay anigu goortii loo eegana 1 hour-ka iyo goortii loo eego yani bullback buu ii samaystay aan goortii bullbacka ii samaystay baan galay oo bullbackaas aan sugay goortii bullbacka aan sugayna haddana bullback kaloo samaystay waan sii raacay oo xaggaan u tegay oo ahayd zone adag oo meeshaan oo 4 hour-ka ah dib inuu ugu noqdaan ka filaya waa zone adag oo macnaha aan la soo jabin karin dhigina goorta fiirisid waxa waaye meeshii ugu adkeyd buu taagan yahay oo gadaal baa loo ceshay baa waxa waaye kanalku meeshu ku dhamaaday oo ani 4 hour goortaan fiiriyo wuxuu iga bilaabmay buy oo waa ujeedaa lifti in soo ceshay oo noqonayso oo suuqan laga soo jeeday meeshii ugu dambeysay uu gaaray. suuqan ilaa iyo 126 bib suuqan caadi ahaan waxaanu ka sugaynaa waxa waaye inuu suuqan soo daato ustaad wax walba waa dhici karaan oo yani inta soo daato inuu xaggan bullback u samaysto soo noqdana waa macquul oo meelahan soo tago ilaa xaggan uu soo tago waa macquul oo suuqan buy baan aan ka sugaynaa oo meel adag baa hadda joogaa inuu gadaal u noqdo waa farikilid baa malinayaa ustaad waa hadli kartaa. mahadsantahay cabdimalik aad baa mahadsantahay fiican baa u sharaxday insha allah waxaan isku dayi doonaa hadduu ilaahay idmo inaan isbuuc walba marka ardayga diyaarka ah aan siiyo channel ama laba ama hal ama hadba inta haleegi karayo ama mar walba inta qof markaa yani diyaarka u ah inuu ka qayb qaato analyska maadaama falanqayntu waxay ku fiican tahay waxaa weeye yani waxay ku sahlaysaa inaad 5 maalin oo kale iska sii nafistid oo aad tartiib isaga jirtid oo wax la yiraahdo almost taageerinaysa lacagihii waxa ay samayn karayaan waana sababtaan xad walba amrina waqti fiican u wada qaadano marka Ibrahim waxaan filayaa inuu baaqday in intaas inuu soo gabagabeynayo ayuu egtahay marka wiiga dambe insha Allah u diyaar garooba in ardada laba kamida markaas u diyaar garooba insha Allah waana soo xiranaya qofka macna labadii qof ama saddexdii qof intaanan bilaabin ayaan sii sheegi doonaa ilaahay intaas waxay nooga dhan falanqaynta wiiglaha ahay ku sameynayna suuqa walaakiin Faisal iyo ardadii Tayo Academy haddaad ugu cusub tahay channelka cusub subscribe samee sidoo kalena kusoo biir teamka Tayo oo fiixaya Tayo channel si aad wax liyaa saaxiib ku Tayo family insha Allah qaybtan waxbarashada way naga dhamaatay diiwaangelinteeda waxaan timekeeno dhan dib ugu celin doonaa hadduu ilaahay idmo ardada si wax liyaa inta hadda haysan aan ugu dadaalno waana horumarin doonaa hadduu ilaahay idmo future-ka inaan platform iyo gurno qofku wax liyaa aan time waxbarashada heli karayo ayadana qorsheeda aan process ay ku jirto hadduu ilaahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.